wuxuu ku kala ahaan jiray qaar xiraa oo ku yaala Jabal Nuur, halkaas oo Alle ku xusi jiray ilaa uu Jibriil u yimid. Wuu soo dumay, kadibna wuxuu ku dhahay, iqra, akhri. Wuxuu ugu jawaabay, maa ana biqaari, ma ihi mid wax akhriya. Mar labaad wuu soo dumay, haddana wuxuu dhahay, iqra. Nabigana wuxuu ugu jawaabay, lastu biqaari, ma ihi mid wax akhriya. Markii saddexaad wuu soo dumay, wuxuuna ku dhahay, iqra bismi rabbika alladii khalaq, khalaqa al-insaana min calaq, iqra warabbuka al-akram, alladii callama bilqalam, callama al-insaana maa lam yaclam. Wuu soo baxay nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo cabsi la jareynaya. Gurigiisuu yimid, wuxuuna dhahay, zammiluuni zammiluuni, idadaboola. Shantaas aayadda ugu horeysa suuratul Calaq waxay ahayd aayadihii ugu horeeyay ee nabiga sallallahu calayhi wasallam kusoo degay. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. واثلة بن الأسقع waxaa laga soo wariyay rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu dhahay suxufu Ibraahim oo ah kitaabkii Ibraahim calayhi salaam inuu soo degay habeenkii koowaad ee Ramadaan. Tawraatna uu soo degay 6 habeen markay ka tagtay Ramadaan oo ah maalinkii toddobaad. وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان. إنجيلنا waxaa la soo dejiyay 13 maalin markii Ramadaan ka tagay oo ah maalinkii 14aad. Qur'aankan waxaa la soo dejiyay 24 maalin markii ka tagtay Ramadaan oo ah maalinkii 25aad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa in qur'aanku uu soo dejiyay laylatul qadr. Wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, bismillaahir rahmaanir rahiim, innaa anzalnaahu fii laylatil qadr wamaa adraaka maa laylatul qadr. sidoo kale Allah markuu dhahay, innaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin innaa kunnaa mundiriin. qaabku uu soo degay qur'aanka wuxuu ahaa Ilaahay qur'aanka asagoo dhameystiran wuxuu ka soo dejiyay Lawhul Mahfuuz, wuxuuna soo dejiyay Baytul Izza oo ku yaala samada adduunyada, waana samada koowaad. Kadib Jibriil calayhi salaam wuxuu nabiga ugu soo dejin jiray hadba dhacdooyinka iyo waqtiga Ilaahay uu talagalay. Ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku dhahay, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. haddaba 25 Ramadaan wuxuu ahaa maalinkii uu soo degay kalaamka Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah qur'aanka kariimka ah.